بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. reer Somaliland meel kastoo aad joogtaan gudaheeda dibad dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa. waxaan idin leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu iyo dhammaanba inta af Soomaaliga ku hadashana aad iyo aad baan u salaamayaa. alxamdulilah rabbil caalamiin. kaftan siyaasadeed baan maanta inoo hayaa. kaftan siyaasadeedkaasina wuxuu noqonayaa sidanaynu u dhigaynaa bal hadda mustaqbalka iyo madaxweyne Muuse Biixi dabadii ayaynu doonaynaa inaynu ka yar faalloonno. xalay waxaan arkayay ama si aynu maalmahanba arkaynay jahbad ninka caare la yidhaah hogaamiyo oo runtii dad qurbaha in badan joogay oo qurba joogii u badan yihiinna ay taakule u geystaan oo ay caawiyaan oo ay taageeraan oo dalka Somaliland gudihiisa ku dhuumaalaysanaya oo gobolada bariga Somaliland xasilaani darra ka wada oo ay dad halkan qurbaha ku nooli oo caruurahoodii iyo reerahoodii iyo dadkoodiiba ay qurbaha daadsan yihiin oo casiir iyo haddii nabadgelyaba haystaan iyo iskuullo ay duulimaad ku yihiin dad masaakiina oo xoolo dhaqato ah oo reemiya oo wax walba leh oo dhib badan haysato oo abaara haystaan oo burbur iyo runtii baahi fara badan ka muuqato inay ku masruufaan jahbad gudaheeda doonaysa inay barakbiciyaan intaana ay hilifaha u sii qaadaan ay dalkana doonayaan inay xamar u ekaysiiyaan oo maanta moodo gobolka Sanaag iyo nawaaxigiisu inuu xamar u eg yahay ee aanu Somaliland la mid ahayn ama aanu ka mid ahayn. iyada oo aad bulshada arkayso galbeedka in tacliin iyo shanta gobol ee reer Somaliland ee kale tacliin iyo horumar iyo dimuqraadiyad iyo doorashooyin iyo de lagu tartamayo nolol iyo caafimaad iyo ceelal la qoto iyo de la dah rogayo nolosha maalinba maalinta ka dambaysa ayaad halkaana waxaad moodaa in dhiig iyo dhimasho ay had iyo jeer ka soo yeedhayso sida ay xamar ula noolaatay qaraxa iyo dhimashada iyo dhaawac. marka waxaad moodaaba inaanay halkaas la mid ahayn Somaliland. haddaba nimanka ninka taageeraya ee jahbada maanta gudaha Somaliland ka taageeraya ee dagaaladii iyo wixii burburkii boqolka nooc ahaa waxba ku qaadan waayay ee waxba ku waaya arki waayay ee xaalku markaa uu noqonayo ilowsha dhawaama umulba dagaal boqol noocayna soo maray weji fara badan buu soo maray marxalado fara badan buu dagaaladu soo mareen wixii waa laga soo gudbay. ninka maanta u lalabaya jahbad Somaliland gudaheeda inay saldhig ka dhigata ay ahayd ku taageersan ee ninka weyne xalay ragga waaweyn ka hadlaya TV-yada ee jahbadaha taageersan waxaan u sheegayaa ama aan doonayaa inaanu ka wada sheekaysano oo aanu ka wada hadallo madaxweyne Muuse Biixi dabadii oo madaxweyne dimuqraadiyad lagu soo doortay oo nabadgelyo lagu soo doortay oo food lagu soo doortay oo cadaalad iyo sinaan lagu soo doortay oo dimuqraadiyad iyo xisbiga ku tartameen oo shan madaxweyne hore aanu soo kala bedelay oo dadka qurbaha ku noolina ay hadhiya habeen dhoofayaan nabad qab dalkoodii iyo dadkoodii ku tagayaan haddii dadka Somaliland ku noolina ay nolol higsanayaan. ninka ay ku filaan laadaay ee maanta dimuqraadiyadda iyo nolosha wanaagsan ee adduunyadii maanta ictiraafka laga goobayo ay ku filaan laaday ee deeqi weyday ee aamini waayay ee jahbad nin samaystay ku taageeray ee imikana ku biiliya ee imikana ku difaacaya bal ninkaa waxaan doonayaa noloshan wanaagsan haddii uu xamili waayey oo uu cuntami weyday bal jahbadnimadu waxa ay leedahay inuu iga qanciyo aniguna waan ka qancinayaa jahbadaydiina diyaar baan u ahay. bal hadda markaa madaxweyne Muuse Biixi dabadii waxaad ka soo qaadaa kaftan siyaasadeedka oo runna noqon kara kaftanna noqon kara. madaxweyne Muuse dabadii marka uu madaxweyne Muuse ka dhaadhaca meesha sidoo doonaba ha uga dhaadhaco bal markaa haddii aynu jahbada noqonno oo aynu jahbada u xuubsiibano oo gobol waliba jahbad samaysto oo reer waliba jahbad samaysto
iyo tamaanta aynu hadhsanayno midka inoo roon jahbadda matalan haddii aynu jahbada samaysano jahbadda maanta habar yoonis waa ka caara hogaaminayaynu ognahay magaca habar yoonis bay sidataa habar yoonisna lama hadlaya inta taageersan inta jahbadda taageersan un baanu wada kaftamaynaa jahbadda maanta habar yoonis ku abtirsataa caara hogaamiya jahbadda ciidagala ku abtirsan doontana bal hadda eega hadda ismaaciil hurre buubaabaa hogaamin doona jahbadda ciise muuse ku abtirsan doontana waxaa hogaamin doona mujaahid ibraahim dhegaweyne jahbadda sacad muuse ku abtirsan doontana waxaa hogaamin doona mujaahid muuse biixi cabdi jahbadda habar jeclo ku abtirsan doontana waxaa hogaamin doona mujaahid maxamed kaahin axmed jahbadda samaroon ku abtirsan doontana waxaa hogaamin doona mujaahid cabdiraxmaan oo cali faarax jahbadda arab ku abtirsan doontana mujaahid xasan ciise ayaa hogaamin doona bal haddaba waxaanu yeelaynaa anugu intaasumaan imanka xasuusanahay haddaan halmaamo qabaa'ilka iyo gobollada yaan la ii qaadin nin weliba bal isaguna jahbaddiisa cidda hogaaminaysa ha soo sheegto waa bal haddaba niman yahow jahbadda markaynu sidaa u dhigno ee sidaa ay hogaaminteedu noqoto ee nin weliba jahbaddiisa iyo ciidankiisa iyo hubkiisa iyo nidaamkiisa uu isku qoofasho ee uu habaysto yaa iyo nolosha maanta aynu ku jirro ee dimuqraadiyadda ah ee foodka ah ee haddeeba kuu roon yahay madaxweynaha ah ee aynu ictiraaf ku raadinayno bal intaasoo jahbadood iyo dawladda maanta aynu higsanayneenu ku noolahay bal hadda miisaanka markaynu saarro waa ninka jahbadda kur cararayow bal miisaanka saar jahbaddaada hubkaaga miisaanka saar isqiimee jahbadnimada waxaad ku heli doonto hoggaamiyenimada waxaad ku heli doonto ragga meesha maraya miisaankooda iyo culayskooda siday u kala dagaalyahansan yihiin siday u kala qiimo badan yihiin siday u kala nincelisan yihiin siday u kala geesisan yihiin siday u kala taariikh badan yihiin sida ay u kala dagaalyahansan yihiin nin walowba markaad miisaanka saartee laysugu dhiijiyo ay runi runtee tagto ay jahbadi jahbad noqoto bal jahbadaha markaad sidaa iyo magacyada ragga hogaaminaya miisaanka u saarto waa bal waxaad yeeshaa qalin iyo warqad qaado oo bal dib isugu noqo oo ninkii guul ka gaadhayowna oo raggaa meesha aan ku tilmaamay guulo badan oy soo hooyeen iyo kuwa dambana ka filaya inay soo hoynayaan ninka aan guul ka filayn hoggaamiyihiisowna aad miisaanka saartood qalin iyo warqad qaadatood tiraa wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi maanta nolosha aad ku jirtaa kaaga qurux badan jahbadda uu hebel kuu hoggaaminayo inaanu guul kuu keenayn baan u malaynayaa oo ragga meesha maraya jahbadaha kala hoggaaminaya markaynu miisaankoodas eegno in rag laga guulaysanayo inaanay ahayn sidaynu taariikhda uga barannay iyo sidaynu ilaahay uga barannay aynu halkaa ku arkaynee bal waxaad yeelaysaa aynu dhammaanteen dib isugu noqonno oo aynu inteenna jahbadaha taageersan ee jahbadaha biilisa ee jahbadaha jecel shayddaanka intaynu iska naarno jahbadda nooceeda iyo dagaalkeeda iyo hawsheedu saasay ku dambayni doontaa dabeetana gobollo gobol u gudbi maayo gobollo gobol u ciidmi maayo gobollo gobol meel u gaadhi kari maayo gobol waliba go'doon buu noqonayaa gobol waliba wixii ilaahay halkuu ku abuuray ayuu ku godoomaya oo ku noolaanayaa gobollada qaar baa bakbaktihi doona iyadoon dagaalba cidi isku qaadin gobollada qaar baa daadku qaadi doonaan gobollada qaar baa dhergi doona bal waxaa yeeshaa nin walooba dal iyo dad iyo dunyo waxaad hayso iyo jahbad waxaad hayso intaynaan dawladnimadeenna iyo dimuqraadiyaddeenna iyo dariiqa suuban aynu maanta hayno iyo horumarka aynu gaadhnay sharafka iyo qiimaha aynu leenahay magaca iyo maamuuska aynu geeska afrika ku leenahay wixii soomaali la odhan jiray ee afka soomaaliga ku hadli jiray inay somalilan maanta ugu mudan tahay oo ugu magac baroon tahay oo ugu maamuus badan tahay waa bal aynu intaynu miisaanka saarra aynu haysanna nolosheenna oo jahbad ha dhow go'doon iyo reero go'doon meela ku noqda iyo haddeeba kuu roon yahay burbur iyo baaba waaryaynaan ku doorsanina inteenna jahbadaha taageeraysay ama inta jahbadaha taageeraysay wax yar weeyaan war inta jahbadaha taageeraysa waxaan leeyahay oo aan kula talinaya oo aan ku waaninaya war ilmaadeerayaalow jahbad
iyo dagaal iyo dhiig iyo dhaawac xamar iyo Soomaaliland wixii soo maray iyo waxa xamar imika ka socda ayaynu ku taamilo qaadanaynaa oo aynu ku eegaynaa oo isha cali ka lulata ayaynu arkaynaaye waxbayaynaan ku degdegina ninkaa fallaagada noqdayna ha la soo celiyo oo gobolkiisu ha soo celiyo oo dhalinyartiisu ha soo celiyaan oo odayaashiisu ha soo celiyaan oo reer Soomaaliland oo dhammi way dhaleecaynayaan oo way cambaaraynayaan oo way kandam garaynayaan oo way la yaaban yihiin cidda taageeraysa iyo cidda soo celinla iyo cidda wax tarta iyo cidda ciidan iyo adduun iyo arrinba siisa waa lala yaaban yahay warnin waliba siduu ilaahay wax kaga doono ayuunbuu kaga helaa ilaahay haddaad wanaag wax uga doonto dariiq wanaagsan buu ilaahay kugu arsaaqaya haddaad dhiig iyo dhimasho iyo dhaawac iyo jahbad iyo balaayo wax kaga doontana ilaahay taasunbuu kugu arsaaqaya bal haddaba intay weli duurxul tahay dib iyo noqoshaan rabaa dadaal dhaba baan rabaa war nabadgelyaynu u baahannahay war horumar baynu u baahannahay war halaga tanaasila jabadda war jahbadda maanta ummadda u horseedaysa fowdada iyo burburka iyo kala qaybsanaanta ee waxba soo kordhinayn arnimayo waxay yeelaysaan ciddii taageertay jabadda ha taageerina ka waantooba waa qaranka meelha kaga dhicina Soomaalilandnimada meelha kaga dhicina gobolnimada sanaag meelha kaga dhicina war dadnimada diinta meelha kaga dhicina war dadaal iyo nolol iyo adduunkan waa laga tegayaa aakhira loo shaqaysanayo sahay baynu qaadanaynaa war sahay wanaagsan aynu sii qaadano war ubadkeena aynu daryeel u samayno war adduunyadeena halkaynu ku bixinayna meel munaasiba ha noqoto war waxan waa ilaahay way nagala xisaabtamaya waa dhiig bini aadan ilaahay baa naga xarimay war nin walaalkii qori u sitaa meel gaari maayo war si xunun buu u dhiman isaga u dhiman doona aakhirana isagay ku qalladan tahay war shaydaanka ha la iska naaro dib ha la isugu noqdo balaayo aan loo baahnayn yaan loo yeedhanin dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho horaynu uga daalay ninka nabadgelyada iyo nimcada iyo wadadii ceerigaab oo maanta la samaynayo ee 500 kilomitir ay u dhadhamilaaday war xabaal baa u dhadhamin doonto laabtay kaga dhici doonta ilaahay baanu ka dalbaday sidaa inay laabta kaga dhacdo oo wadada diiday inuu wanaag ku maro oo uu sharaf ku maro oo ammaan ku maro ninka diiday laabtay kaga dhici doonta waxaad yeelaysaan hadalka waa idinku dheereeyay ونيما شيطان كلا إسكنارو ورشيطان كلا إسكنارو ده هدي شافد الله دوننا ده شافدو سلام صور شيء بكلا نقول تونانه تاني والله نصيب كابل قاضي كل تاكتا كل تمرتا هاد بان دين سلام يا وكفتن سياسات أنا إلهي يقوم أوجا إلهينا إجمع دقيقة كي شافد تاجرة إلهينا وحن كبر ياين أنا شافد تاجرين إلهينا وحن كبر ياين أنا ديك سكية تاجرين عذوق الصومالي لان جود أيوم بأنا أما أن كل ما نيا أما أن كل ولا نيا وحي أنت كهوس يا إلهي بان كهوس كلي إن أنا أهني أدون منا كبحين إفي آخر الله يقبسنا يا آد بان دين سلام يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم.